الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان الكريم مeel walba aad joogtaan iyo goor walba xil walba idiin tahay waxaan wanaagsan ayaan ku leeyahay kuna soo baahiyay qodobo siyaasad dalkaada hooyo kuwaas leena waxay isgelinayaan maxamed cabdullaahi farmaajo maxay tahay sababta oo mar walba u adeegsado kalfadhiyada baarlamaanka in uu ku hor istaago u adeegsiga ciidamada shantii sano ee la soo dhaafay asigoo uu adeegsanayay iyo maanta uu adeegsaday warbixin la xiriirto ayaa idiin haynaa balse adigana daawanaya haddii taa booqashadaada koowaad aana soo booqatay aan subscribe-ka noo saaran falla calaamad goobta subscribe-ka taabagan beelka furo si aan macaamiil joogto u noqon sidoo kale barteena kale facebooka flow haddii aana soo dhihin fadlan calaamadda flowga taabo ee flowna soo dheh videoga like noo saar aragtidaadana commentiga noogu soo gudbi asxaabtaadana usii sheergariya dad badan ha sii gaarto mahadsanid qodobadiina ayaan gudagalaynaa baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhammaaday ayaa waxa uu ahaa kulamadiisa markii qaar in loo adeegsado ciidamo kalfadhiga baarlamaanka oo xubnimo loo diido maanta ayaana waxaa dhacday sidaasoo kale baraha kontarool ee laga soo galo villa soomaaliya ayaa waxaa lagu arkayay ciidamo fara badan oo iskugu jiro military booliis iyo nabad sugid oo wata gadiidka dagaalka ee beebayaasha kuwaasi oo baro kontarool fara badan ka samaystay saraakiil ka tirsan ciidamadii maanta meeshaas la geeyey oo doobiya media la hadlay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ujeedka uu ahaa in ciidamadaasi ay hakiyaan markii ay soo galayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya dhowaan ceelwaaq lagu soo doortay kulanka villa hargeysa ka dhacayo ee hadaljeedinta musharaxiinta si ay halkaasi markay yimaadaan baraha kontarool loogu celiyo haddii ay wadin edhikaar ama aqoonsiga cusub waxaana maanta kulankaasi oo shir gudoominayay gudoomiyaha ku-meelgaarka dhabancad oo helay xogtaasi iyo ciidamada in oo wadaana xildhibaano ka tirsan kuwa kasoo horjeedo in halkaasi lagu dhaariyo kalfadhiga hadaljeedinta ka hor xubno ceelwaaq lagu soo doortay waxaana si weyn u diidanaa xubnahaasi cabdi kulane oo si weyn villa soomaaliya ugu xiran oo farmaajona isku reer ay yihiin wuxuuna sheegay in aan lagu dhaari karin halkaasi xildhibaanadaasi islamarkaasina deegaanka laga soo doortay ay tahay mid aanan sax ahayn kasoo horjeesasho ayaa hore waxaa u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo doorashadaasina ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn islamarkaasina si weyn ugu soo horjeestay waxaana ceelwaaq dhowaan ka dhacday doorasho islamarkaasina maanta lasoo gabagabeeyey xubnihii lagu doortay 16 ahay oo qaarkood soo gaaray muqdisho guddiga doorashooyinkana ee maamulka jubbaland ay sheegeen balse waxaana maanta ay rabeen in ay markay soo gaareen muqdisho shalay kuwii la doortay 11 xubnood ay rabeen in ay noqdaan kuwa maanta lagu dhaaray baarlamaanka balse rooble iyo farmaajo oo doorashadaasi gado xubnaha 16 kursi ah oo guluf siyaasadeed ku kala dhexmaray oo ceelwaaqna doorasho oo ku qabtay rooble iyo sidoo kalena maxamed cabdulaahi farmaajo oo garbahaareyna rabo inuu doorasho ku qabto xubno halkaasi oo guddiga doorashada iyo sidoo kalena xubno kale ee xildhibaano doon ah oo geeyey balse su-aasha isweydiinta badan waxay tahay maxamed cabdulaahi farmaajo dhowr jeer oo horey baarlamaankii hore uu adeegsaday ciidamo kana iminka asigoo xil helin oo xildhibaano cusub ay yihiin ayuu maantana ciidamo adeegsaday maxay tahay sababtoo mar waliba kalfadhiyada oo rabin asiga baarlamaanka oo ciidamada ugu adeegsadaa haddii ay maanta ay u meel martay in xildhibaanadaasi kalfadhiga aan la keenin islamarkaasina aan lagu dhaarinin ay tahay mid haddii uu soo laabtana ay sidii ugu naqanayso wararku ayaa waxay sheegayaan in maanta baajintaasi ka dambeysay markii gudoomiyihii ku-meelgaarka ee baarlamaanka golaha shacabka ambasador cabdisalaan xaaji axmed dhabancad oo la xiriiray qadka taleefonka la xiriiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta islamarkaasina u sheegay in xubnaha baarlamaanka ceelwaaq lagu soo doodo aysan imaan kalfadhiga baarlamaanka si xasarada jirto loo dhameeyo wuxuuna sheegay in xildhibaano ay diidan yihiin ciidan fara badanna la keeno goobta sidaasi darteedna ay dhici karto qalalaaso oo kalfadhiga maanta hadaljeedinta baarlamaankana baaqanaya waxaana maanta cabdi kulane iyo kooxdii villa soomaaliya ee golaha shacabka baarlamaanka ka tirsanay u meel martay in ay diidaan islamarkaasina ay baajiyaan dhaarintii la rabay xubnihii lagu soo doortay degmada ceelwaaq islamarkaasina ay maanta kalfadhigii aanan lagu dhaarinin farmaajo iminka maxaalkiisa gado in muddo oo ku dhagnaay kulankii baarlamaanka dhaarintiina oo maanta ugu hor istaagay ciidamo waxay noqonaysaa in
oo xildhibaanadaasi oo kaga adkaado in uu ciidamo adeegsado. haddaba adigana daawanayo daawadahana sharafta lahow, fadlan aragtidaada iyo sida xaalka uu noqonayo bal commentiga nagula soo wadaag. ku dhaafno daawateen tan iyo markaan kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo kulan kale.